assalaamu calaykum. Kadib markii aan aragnay musiibada weyn ee ka dhacday Turki iyo Suuriya, inagu waxa ay inala noqotay musiibo guud. Muuqaalkani waxaan diyaarinay kadib musiibo adduunka gelgishay. 10,000 oo dhimasho ah, 10,000 oo dhaawac ah, iyo malaayiin barakac ah. Waxaan dib ugu soo celinayaa xusuustaada dhacdooyin dhowr sano ka hor dhacay. Waxaan kuu sheegayaa saadaalo dhacay kadibna musiibooyin ka daba dhacay. Ka hor intaana bilaabin muuqaalka, iska hubi haddii aad ka mid tahay dadka nagu xiran. Bishan aynu ku jirno ee February 2023 ayaa waxaa lagu dhawaaqay in dhagax weyn uu ku soo wajahan yahay dhulka, isla markaana lagu arki karo isha caadiga. Waxaa lagu arkay dalal badan oo ay ka mid yihiin Yemen, Masar iyo kuwa kale. Waxaan baaray masiibooyin dhacay 2020 kuwaasoo ku soo beegmay kadib markii la saadaaliyay hawada. Agoosto 8 2020 waxaa jiray shilal badan. Maalmood ka hor inta aanay saadaasha hawada soo bixin, bishii Agoosto 2020 ka dhacay dekedda Beirut musiibo qarax oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo qof ah, ayna ku dhaawacmeen 100 qof ah, ayna ahayd musiibo qarax. Bishii September ee isla sanadkaasi, musiibo fatahaad waxa ay ka dhacday Suudaan, iyada oo ahayd daadadkii ugu rabshadaha badnaa ee Suudaan soo mara muddo 100 sano kadib. In ka badan nus milyan oo qof ah ayaa barakacday. In ka badan 111,000 oo guri ah ayaana burburtay. Dhammaadkii bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi, dhulgariir ayaa wuxuu ku dhuftay badda Aegean ee dalka Turkiga. Dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 7 cabirka Richter scale. In ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay, in ka badanna 1,000 qof waa ay ku dhaawacmeen. Dhulgariirkaasi waxa uu ka dhacay badda. Haddii uu dhulka ka dhici lahaa, waxa ay noqon lahayd musiibo ay dad badani ku naf waayaan. Waxaa jira dhacdooyin badan inta lagu guda jiray sanadka 2020, laakiin dhacdooyinkani ayaa ku soo beegmay marxalado kala duwan. Muddada waxa ay ahayd 3 bilood: Agoosto, September iyo Oktoobar. Arrinta labaad ee la yaabka leh ayaa waxa ay tahay muuqaal ayaa la baahiyey bilowgii bishan oo ay ku beegneed 1 February ee sanadkan. Waxa uu ahaa muuqaal shactiro badan kadib markii la soo bandhigay dhagax weyn oo ku soo wajahan dhulka. Wuxuu ahaa muuqaal shactiro kadib markii la soo bandhigay dhagax weyn iyadoo la leeyahay waxa uu ku soo wajahan yahay dhulka. 6 maalmood kadibna dhulgariirka Turki iyo Suuriya ayaa dhacay. Qalalaaso ayaa ka bilowday gobollo badan oo ka mid ah bariga dhexe. Oo halkan waxaan kuugu weydiinayaa su'aasha ah, habkee ayuu u soo socdaa dhagaxa? Maxaa ka dhexeeyo saadaasha cirbixiyaanada iyo musiibooyinka? Waxaan bilaabay